shirkan jaraa'id oo maanta xafiiska wasaaradda maaliyadda uu ku qabtay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu kaga warbixiyay bishii la soo dhaafay waxyaabihii ugu waaweynaa ee shaqooyinka maaliyadda u qabsoomay sidoo kale waxa uu si guud wasiirku sharaxaad uga bixiyay isagoo la hadlayay warbaahinta 6 bilood ee la soo dhaafay howlihii guud ee wasaaraddu u qabsoomay iyo shaqooyinka maaliyadda ay qabatay dalka waxaana uu sheegay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya in si wanaagsan howlahaasi u qabteen isla markaana iyagu ay waqtiyo badan soo qaateen waxaad ogtihiin aanu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed halkan naga daawanaysa wadan ku taaganahay wadadaasi wadadiina way leedahay la mariyay weelkii wax lagu shubanayeen way leedahay wadada waxa weeye wadada aan isla saxanay beesha caalamka ay horumar u tahay IMF qolada la yiraahdo ama hay'adda lacagta adduunka weelka wax lagu shubanayaana waa miisaaniyadda waxaan ku sheegnay waanagu waxaan oranayaa waa xeeradii ama waa muxuu ahaayna dherigii wax lagu karsanay weeyaan labada arrimood ayaa wax walba ku dhex jira wadadu waxay tilmaamaysaa in badan baynu ka dhacsanaynaa wadada ku dhacno waxyaalo badan bay leedahay marka wadada waa soo soconay intii hore dhan waa idin ka warramay halkaan maanta ka taaganahay wadada iyo halka ku dhamaan doonto ayay tahay inaad si fiican fahamtaan dhinaca kale wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay dakhliga xukuumadda u soo xarooday bilihii la soo dhaafay waxaana uu sheegay in wasaaraddu ay soo xareysay dakhli wanaagsan kaas oo ka yimid bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda waxaana uu dhinaca kale sheegay in dakhligaasi uu si wanaagsan u soo xarooday iyadoo aysan jirin deeqa shisheeye oo si dhammaystiran u yimid laakiin ay tahay wax wanaagsan oo la gaaray in dakhli wanaagsan uu soo xaroodo kaas oo ka yimid dadka Soomaaliyeed san hore idinku sheegay bishii hore March 30keedii waxaa laynaga rabay 930 milyan 240 iyo badh ayaan keenay waa ka gudubnay bishan maanta dhamaatay June waxaa laynaga rabay inta in leeg 930 waxaan gaarnay 40 iyo waxoogaa ayaan gaarnay labadaba markaa waa dul marnay aad iyo aadna waa idinku mahad celinayaa lacagahaas waa lacaga ummadda Soomaaliyeed ka yimid dadka Soomaaliyeed ka yimid waxa la tirinayaa waxa weeye tayna waan iska ururnay weeyaan ta kale ee budgetka ku jirta ama hela ma helin cidina kuguma haysato mas'uul kama ihid haday timaadana way timi haday ima weydana ma iman arrimahan ka shaqeynayna marka waxa kamid ah kuwa la socda oo bishii June iyadoo no hirgalay oo waxyaalaha kordhiye kamid ah dakhliga kordhinaya waxa la nagu yiri wasaaradda maaliyadda iyo Central Bank kaliya ayaa la qaban karaa waana sida sharcigeenu waafaqsan yahay ee sharcigeenu oranayo dhibaatadiina soo martay daraadeed wasaarado badan iyo wakaalado badan oo iyagu lacag qabtaba jira kol hadii lacagta lagu qabto dibaddana waxa ka soo gaaraya adduunka dhibaatooyin badan ba ka taaganay waa yariin adduunku wuxuu isku raacsan marka wadan walba wasaaraddiisa maaliyadda ama revenue-ga qolada la yiraahdo dakhliga ayaa qabata waa isku raacnay marka taa annagoo tixraacayna qawaaniinteena iyo baaqi dheeraa ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu jeediyeen in lacagaha lagu soo wareejiyo wasaaradda maaliyadda ayaduna mas'uul idin ka noqoto gabagabadii kulanka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa ka cudur daartay in bishii la soo dhaafay ay soo bandhigeen howlihii bilaha ay u qabsamay wasaaradda isla markaana uu sheegay in iyagu ay ku mashquulsanayeen dadajinta iyo dhamaystirka howlaha si guud si loogu soo bandhigo dadka waxyaabaha ugu waaweyn ee dakhli ahaan soo xarooday Maxamed Bishaar Barre Jaamac Goobjoog Muqdisho